dibadbaxani ay soo qaban qaabiyeen qaar ka mid ah dadka ka shaqeeya gaadiidka xamuulka qaada ee Soomaal goboleedka Mombasa iyo waliba sidoo kale dadka iyaga hoos yimaada sida darawallada dadka iska leh shirkadaha gaadiidka qalabka lagu hagaajiyo keena iyo waliba sidoo kale ururada bulshada rayidka ayaa waxa uu ka dhacay magaalada Mombasa gaar ahaan xaafadda Jangame. dibadbaxayaasha ayaa waxay ka cabanayeen shaqo la'aan baaxad weyn oo soo wajahday kadib markii sida ay sheegeen tareenka SGR-ka ee cusub ee dalkan Kenya dhawaan la hirgeliyay uu shaqooyinkoodii ay muddada dheer ay ka shaqeynayeen oo isagu la wareegay. dibadbaxayaasha ayaa waxay xireen wadada dheer ee Jangame ee aada magaalada Nairobi ee caasimadda dalkan Kenya iyadoo la arkay ciidamada booliska oo wadada gaaf wareegaya si ay u xaqiijiyaan banaanbaxan inuu ku dhaco nabadgelyo iyadoona banaanbaxan ay ku qasbay dadka wadadaas isticmaalayay inay wadada ay qaar ka mid ah ay ka leexdaan. qabqaabayaasha banaanbaxa oo la hadlay warbaahinta ayaa waxa ay sheegeen in arrintan ay tahay mid dhibaato xoogan iyaga soo food saaraysa ay horseedi karto waxaana ugu baaqeen madaxda dalka ugu sarreeyay in arrintan ay wax ka qabtaan. Na tunauliza serikali, can you build a business by destroying another business? No. Nyinyi mumeijenga SGR lakini huku mumejenga SGR muna destroy thousands of businesses. Kwa hivyo sisi tunaitisha fair competition. Hatuipingi SGR lakini tunasema anayetaka kubeba mizigo yake na SGR abebe, anayetaka kubeba kwa road transport apatiwe fursa pia. gudoomiyaha hay'adda xuquuqul insaanka ee Haka Afrika isla markaana kamid ah madaxda iyo banaanbaxan soo qaban qaabisay oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu sheegay in ay muddo 72 saac ay u qabanayaan dawladda in arrintan ay wax ka qabato haddii wax laga qaban waayana in banaanbaxyadu ay sii socon doonaan. qaar ka mid ah mulkiilayaasha gaadiidka xamuulka qaada oo Soomaaliya aan kala kulmay goobta banaanbaxa uu ka dhacay ayaa waxa ay noo sheegeen in shaqooyinkoodii arrintan ay saameyn xoogan ku yeelatay iyo gabi ahaanba noloshoodaba. haddaba daawadayaal hadda waxaan la kulanay mid ka mid ah dadka iyagoo ka shaqeeya transportka ama gaadiidka walaal magacaada Daahir Ismaaciil Sulub. Daahir Ismaaciil Sulub waxaan warta Daahir oo bal arrintan dibka ay idinku hayso dadka dadka gaarasha iska leh dibkan maxaa noo keensanaya baabuurtan treenka cusub la hagaajiyay oo SGR ah dibka noo keenay baabuurle ana kala baabuurta waaweyn oo taylaha shaqalaan lagu dhacday SGR container yoomkii muxuu qaadaa ilaa 1000 container uu qaadaa yoomkii halka baabuurle ay qaadana arkaan dibkan dhan SGR keenay madaxweynaha qaban karo governor Kenya oo Mombasa wax qaban karo markaas waa ka silaan saan yeelo meesha maanta waxa u joognaa maxaa waaye mudaaraad oo qabow meesha ku haynaa oo inay wax maqlaan arkana inay wax maqlaan arki rabnaa. waa gartay marka hadda waa soo baxdeen waxa la qabtay 72 saacadood in arrintan wax laga qabto hadii wax laga qabto dib u dhici doono may dib meesha in dagaal iska ilaalin laakiin inta kale mudaaraad kasi weyn hagaajin doona bal wax waa rajayn la 7 iyo waxa la jiray saddex maalin 72 hours aan siinaa dawladda waxa qaaday qaban waysa anaga kala dana sameynayna saas la ku wadana ilaa aan hadalkeen la maqlo ana ko dadka ah walaal magacaada horta Sulaymaan Cabdi Cilmi la yidhaa hay bal baabuurleeyatiin bal ka war arrintan maxay dhib idinku haysaa idinka arrintan shaqalaan badan ay keentay oo dad badan ay shaqalaan noqdeen shaqaala badan la iska ruqsay kambaniyal badan la bilaabeen la xiro hawshii si xun u socota haddii la yiraahdo waxa dhibkan ugu istaaysan waa SGR-ka shaqadii dhan inuu asaga qaato raba hadda waa maqashay meeshan 42 saacadood la isii واركن مدارات كاسان ودنا قبوب هاوش سي ku socoto dawladda hana maqasho ila madaxda dhamaantii loo tago wax noo qabana male waa dad sheeb kala gashay hadii la yiraahdo ilaaha ka bareena wax uu noo toosay insha Allah wax badan ma sheegi karo hadii la yiraahdo qeyraan isku rajeynana abo banaanbaxayaashan ayaa waxay ka cabanayaan sida ay sheegeen inay shaqo waayeen isla markaana gaadiidka xamuulka qaada ay dhibaato xoogan ay soo food saartay kadib markii la hirgeliyay mashruuca tareenka SGR-ka ee dalkan Kenya iyadoona ay boqolaal qof ay maanta ay xireen wadooyinka magaalada Mombasa. Maxamed Caabid Bootaan telefishinka caalamiga CNN magaalada Mombasa.